بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج شر aan ugu talgalnay inaan uga faalno maalinta qiimaha badan ee 15 May oo ah maalintii la aasaasay ururkii gobolnimada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League maalintaani oo ah maalin qiimo iyo qaaya ku leh dhamaanka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa loo aqoonsaday maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa inoo suurto gashay in aan wareysi la yeesho mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Qurbaha kusoo dhawaad barnaamijkan aan ugu talagalnay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku dhawaad barnaamijka maanta waa maalintii la aasaasay ururkii gobolnimada Soomaaliyeed ururkii SYL 1943 maanta oo kale waxaa ka soo wareegtay 60 sano sidee u aragtaa maanta qiimo intee leeg ay u fadhido Soomaalida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم maantay waxaan u arkaa si weyn oo macnaha 13 nin oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo SYL ka ahay waxaan u arkaa maanta in ummadda Soomaaliyeed ay u tahay maalin weyn oo farxad leh sababtu waxaa waaye waxay ahaayeen niman halgameen oo soo halgamay oo wadanka Soomaaliyeed gobol u ahay hormeyso soo gaarsiiyay marka waxaan dhilahay meel kasta oo maanta ay macnaha qof walba Soomaaliya muwaadin uu joogo inuu xuso waajib ku tahay sidaad ka dhawaajisay maanta waa maalin qiimo weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed sax waa maalintii aas-aaskeeda uu bilowday ururkii leegada Somali Youth League sax dhalinyarada waqtigaasi aas-aaskan bilaabay waxay ahaayeen 13 dhalinyaro waxay ku jireen 16 jir 17 jir 20 jir aad u dhalinyaro bay ahaayeen marka la fiirsho waqtigaasi hadda farqi weyn baa u dhaxeeya dhalinyaradaas waxay kuwa aan aqoon fiican aan lahayn marka loo eego kuwa hadda maxaa koos gareeyay waa isleedahay in dalka mugdigii ee SYL u soo halgameen inuu dib ugu noqdo niyahow horta waxaa waaye haddii runta laga hadlo dhibaatada jirta waxaa waaye dhibaato weyn jirta waxaan dhihi lahay maanta waxaa dhibaata Soomaali cusub sababta waxaa waaye Soomaalida hore iyo Soomaaliyan isku mid ma wahanba isku aqli ma ahan isku fikrad ma ahan waa isku diin leh laakiin waxaa la kala dheeryahay maanka iyo masaxiga maanka la kala dheeryahay nimankaas waxay ahaayeen 13 nin oo halgamanay ahaayeen oo wadanka ummadda Soomaaliyeed u soo halgamay oo xornimo gaarsiiyay dadka hadda joogana ma ogaba inay ku nool yihiin raggaas taariikhda ay soo dhigeen ay ku nool yihiin laakiin nimanka Soomaaliya hadda joogto oo wadanka ku nool markasta ha joogo ma ogo wax ay ku raaxaysanayaan iyo magacyada ma ogo wax ku raaxaysanayaan waxaa dhihi lahay war waxaad hilmaanteen ragga Soomaaliyeed oo laga horreeyay oo soo halgamay taariikhda ay sameeyaan ahmaado waxaan leeyahay ku daysada adikana ku daysada oo iska dhaafa waxyaabaha kale oo kala qodobka iyo qabyaalada iyo qabiilka waxa keenaya iska dhaafa saasaan dhilahay saddexdaas dhalinyaro waxay ahaayeen dhalinyaro ka kala guud ahaan Soomaaliyeed gobolada Soomaaliya kamid yihiin Soomaaliyeed oo dad u taagan in Soomaaliya ay mid noqoto waa dad ka soo horjeeda hadalkii gumeysi ee ahaa in shan Soomaaliyeed ay jirto gumeysi qeybiyay Soomaali waa mid shan Soomaali mid weera ma jirto markaad qiimeyso ma oran kartaa ma isleedahay in ay soo bixi karaan 13 nin oo la mid ah SYL oo dalka u halgama yani dalka Soomaaliya nabadda ay nabadda iyo oo muddo ku taamay muddo 30 sano ahayd waa 13 nin dadaalkoodii dhalinyaro بس umalay maayo walaalkay sababta waxaa waaye dadka hadda jooga waxaa waaye waa dad ma adag marnaba umalay maayo in 13 nin ay hadda soo baxayso ilaahay xaqiisa wax ka maahan laakiin jiilka dambe hadda soo koray ma sheegin laakiin ragga hadda joogo jiilka hadda joogo oo ku aqliyeystay hadda macnaha 20 sano xabadda iyo qabyaalada iyo isqoodka macnaha ku soo koray umalay maayo حالي رجال أجهل لما قصته صح لكن سنة waxaan ku jirnay dib aan oran karnaba gumaysi silaa xaqiiqdii markii laga hadlo
soddonkii sano een haysanay xornimada waddanka Soomaaliya wuxuu gaaray heer aynu tiigsano wadamada caalamka ku hormaray waxaan ka mid noqonay kuwada adduunka ugu waaweyn 13 sinin waxay ahayn adiga iyo asxaab kale oo fikirkaas isku haystay wayna ku guuleysteen wayna ka mid dhaliyeen waxa walba wuxuu baahan dadaal maxaad isdhihi kartaa qaab sidee ah baa looga bixi karaa qabyaaladda loola heli karaa Soomaali midaysan dhalinyaro midaysan mid ah بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاس waxaa lagu heli karaa iyadoo ummadda Soomaaliyeed dhan ay isu imaado sababta waxa waaye waxaan oran karaa dhalinyarada hadda soo koraysa oo hadday fikirto ay dib isugu laabato ay ka baxaan dhibaatada hadda ku jiraan ay ka baxaan oo macnaha ay wax garadka iyo sidee looga bixi karaa waxa looga bixi karaa in hubka dhigaan in hubka dhigaan qalin kana qaataan dii ila ku roon yahay macnaha ay maskaxdooda ay ka shaqeysiyaan ayaa lagu bixi karaa hadday si taas ay sadicin u maleeyo okay aad iyo aad u mahadsan si sharafada barnaamijka oo qaadatay kan wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba u soo hayaamay maanta waa maalin qiimo leh inoo leh dhamaanteeda Soomaali nahay waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku baraarujinaya in ay dib u raacaan taariikhdii dadka Soomaaliyeed oo lahaa sidoo kale Soomaaliya waa mid waa inaan ka tagnaa shanta Soomaaliya la sheegay Soomaali shan maaha waa mid qura السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن إيو كل هنتم بوحد كتير سيداس إيو نبات قليو